Galcad Media News. Galcad Media News. bismillaahi raxmaani raxiim ismaqal wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka Galcad Media qodobadaad ku daawan doontaan waxa ugu dooroon hay'adda nabad sugidda oo fartay shaqaalaha dawladda inay isdiiwaan geliyaan si loo hubiyo ciidamadii ugu badnaa awid oo ka goostay Axmed Madoobe madaxweyne Farmaajo dhaleecan culus kala kulmay sawir la soo galay mid kamid ah raggii la shaqeynayay Siyaad Barre dad badan ku laayay Somaliland Cali Khaliif Galeer oo musabixi ugu hanjabay inuu xilka ka tuuray kacdoon shacab doorashadii Afghanistan oo la soo gabagabeeyay iyo dawladda Mareykanka oo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan u diiday inuu booqdo safiirka Iiraan ee qaramada Midoobe agagadii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho war ku saabsan akhbaaraadka caalamka intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhowaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya u shaqeeya ayaa dib loogu laabanayaa shaqaaleysiintooda sida la sheegay iyagoona la geenaya xarunta godka Jilcow kadib markii la tilmaamay in laga baarayo inay wax xiriir ah uu kala dhaxeeyo dagaalamayaasha shabaab xarumaha qaar ee dawladda ayaa baaritaano la sameeyay waxa lagu ogaaday sida la sheegay in qaar ka mid ah shaqaaluhu ay u shaqeeyaan al-shabaab oo dawladda Soomaaliya dagaal adag kula jira wasaaradda warfaafinta ayaa kor hore lagala baxay wiil u shaqeynayay qaybta daabacaadda ee dhikaarada kaas oo muddo sanad ah xiran sidoo kale gobolka Banaadir oo qaraxii ka dhex dhacay ee lagu dilay 7 ka mid ah mas'uuliyiinta maamulkaas uu ka mid yahay injineer Iriso Duqi Muqdisho ahna gudoomiyihii gobolka Banaadir ay sheegteen al-shabaab laguna tilmaamay inay fulisay Basiir Cabdi Maxamed oo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ka mid ahayd shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ka shaqeeya ayaa la sheegay in loo diray xildhibaanadooda si ay damiin kaga noqdaan haddii ay wax geystaan iyadoona shaqaalaha wax loo geynayo godka Jilcow si halkaasi baaritaano lagu sameeyo xubno ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir oo la kulmay ayaa xogtan ii sheegay iyagoona isku diyaarinaya baaritaanada lagu sameyn doono kuwa oo qaar ka mid ah la sheegay in baqdin xoogan ay ku abuurtay arintan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay fasaxday duulimaadyada rayidka ah ee Kismaayo iyo Muqdisho kaas oo xanibaad la saaray 23kii bishan wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna ku simaha wasiirka warfaafinta Aadan Isaaq Cali ayaa sababta ay duulimaadyada u fasaxeen ku micineeyay kadib codsi uga yimid shacabka magaalada sida uu hadalka u dhigay hadalka wasiir Aadan Isaaq ayaa ka hor imaanaya war 25kii bishan ka soo yeeray maareeyaha hay'adda duulista hawada Soomaaliya Axmed Macallin oo sheegay in waxba ka jirin wararka sheegaya in la xanibay duulimaadyada Kismaayo muddo 3 cisho ah ujeedada xayiraadda socdaalka ee Kismaayo ayaa lagu micinayay isku day xukuumaddu ku doonaysay inay ku baajiso xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe oo qorsheysneed 26 Sebtembar walow ay baaqatay haddana maamulka Jubbaland ayaa ku adkeysanaya inay qabsoomayso waxaana siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo fila Soomaaliya ku eedeeyeen inay hub siyaasadeed u isticmaalayso maamulka hawada oo sanado badan kadib lagu guuleysan dawladda Soomaaliya lagu wareejiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cambaareen xoog li kala kulmay dhanka baraha bulshada kadib markii uu sawir la galay Yuusuf Cabdi Cali Tuke oo maxkamad ku taala Mareykanka ay ku eedeysay xasuuq dad Soomaaliyeed oo ku sugnaa gabilay Somaliland xilligii dawladii Siyaad Barre xildhibaano siyaasiyiin iyo bulshada isticmaasho baraha bulshada ayaa madaxweynaha aad ugu dhaliilay inuu kiciyay dareenka heelada dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay gacanta maamulka militariga waxaan magaca ummadda Soomaaliyeed raaligelin uga siinayaa walaalaha reer Somaliland oo madaxweyne Farmaajo dib u damqiyay dareenkooda soona xasuusiyay maalmo murugo lahaa kadib markii uu sawir la galay shakhsi ku eedeysnaa dambiye dagaal iyo xasuuq dad Soomaaliyeed sida uu yiri xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka ah ee ka
kasoo horjeeda dowladda farmaajo. xeerbeegti Mareykan ayaa dambi ku heshay Korneel Yuusuf Cabdi Cali oo ku magac dheeraa Korneel Tuko oo la sheegay inuu jirdil geystay xilligii uu socday dagaalkii sokeeye ee Somaliland. Korneel Tuko ayaa waxaa dacwo ka gudbiyay Farxaan Taani Warfaa oo sheegay inuu jirdil iyo toogasho u geystay. waxaa lagu xukumay korneelkan inuu bixiyo magdhow gaaraya $500,000. dhacdooyinka lagu eedeeyay ayaa la sheegay inay dhaceen sanadihii 70-meeyadii ilaa 80-meeyadii sida ku xusan warqadaha ninka dacwadda gudbiyay. ciidamo fara badan oo la sheegay inay hore uga tirsanaayeen ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland isla markaasna toddobaadkii hore la tilmaamay inay ka goosteen iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa dagaal ba'an waxa uu ku dhex maray tuulooyin hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamadan oo la tilmaamay inay iskaga soo baxeen magaalada Kismaayo ayaa maalmihii dambe ku sugnaa tuulooyin dhowr ah oo isimaada degmada Jamaame oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Shabaab. dagaalkan oo dhacay gelinkii dambe ee shalay isla markaana mar kale dib iskugu soo laabtay saqdii dhexe xalay ayaa la sheegay inay ku soo qaadeen Al-Shabaab waxaana warar intaasi dheer ku darayaan inuu jiro khasaare soo kala gaaray labada dhinac halkaas ugu dagaalamay. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan Jubbada Hoose ayaa inoo sheegay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha Shabaab oo dagaalkaasi ay kaga geeriyootay 6 dagaalame iyadoona ay jiraan xubno kale oo la shaaciyay inuu dhaawac soo gaaray. dhinaca kale ciidamada Jubbaland ka soo goostay dhankooda waxaa la tilmaamay inuu khasaare xoog leh ka soo gaaray dagaalkaasi. inta la xaqiijiyay waxaa ku nafweysay 4 askari oo ka tirsan ciidamadii Jubbaland ka soo goostay halka ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi 7 kale oo ka tirsan ciidamadaasi. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan duleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Baarsanguuni ayaa gurmad ahaan ugu tagay ciidamada la dagaalamay Al-Shabaab. ma ahan markii ugu horeysay uu dagaal sidaan oo kale ka dhaca deegaanada ku xeeran degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay xusid mudan in deegaanada Baarsanguuni, Araare iyo tuulooyin kale oo hoos yimaada degmada Jamaame ay ka dhacayeen duqeymo iyo weeraro la beegsanayo saldhigyada Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi. madaxweynihii hore ee maamulka Qaatumo Cali Khaliif Galleer oo ka hadlayay shirka golaha dhexe xisbiga wadani ayaa ka digay kacdoon dhalinyaro oo ka dhalan kara shaqo la'aanta xooggan ee ka jirta Somaliland. Mr. Galleer ayaa sheegay haddii dhagaha laga fureysto oo aan garowshiyo laga bixin dhibaatooyinka la tilmaamayay jira in meel fog laga baadigoobi doono masiirka Somaliland. siyaasi Cali Khaliif Galleer ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay warbaahinta ka sii deynaya hadallo aan gambasho lahayn oo ku saabsan fulin la'aanta heshiiskii uu kaga mid noqday Somaliland sanadkii 2017 xilligii xukuumaddiisii lahayo. waxaan rabnaa Somaliland oo la wada leeyahay ma doonayna Somaliland oo hal reer leh ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynihii hore ee Qaatumo Cali Khaliif Galleer balse Somaliland la midoobay. waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland aysan ka fakirin halka shaqo ka helayaan dhalinyarada ka soo baxaya jaamacadaha Somaliland oo sheegay inay ku fakarayaan shaqo la'aanta awgeed in badda isku tuuraan sidoo hadalka u dhigay. madaxweynihii hore ee Qaatumo Cali Khaliif Galleer oo kamid ah siyaasiyiinta ku sugan deegaanada maamulka Somaliland ayaa hadalka ka sheegay xafladda furitaanka shirka golaha dhexe xisbiga wadani kaasi oo ka furmay Somaliland. ciidamada nabad sugidda Jubbaland ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgalo ka sameeyeen tuulooyin hoostaga magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. howlgalka ayaa saraakiisha hogaaminaysa waxa ay sheegeen inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay isla markaana ay ka hortagayeen weerar ka yimaada dhinaca ururka Shabaab. taliyaha ciidamada Jubbaland ee aaga degmada Afmadow ayaa sheegay in howlgalka intay ku jireen ay ku soo qabteen dad badan oo la xiriirinayay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay baaritaano ku sameeyeen. si kastaba howlgalka ciidamada Jubbaland ka sameeyeen tuulooyinka hoostaga degmada Afmadow ee Jubbada Hoose ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli mararka qaar xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar kala duwan ka geystaan deegaano ka tirsan Jubbada Hoose. doorashadii Afghanistan oo soo gabagabowday waxaa soo gabagabowday codeynta doorashadii ka dhacday dalka Afghanistan iyadoo cabsi badan jirtay. ku dhawaad 10 milyan oo qof oo codeeyay dalka Afghanistan ayaa guddiga doorashadu sheegeen in si nabad ah ugu soo dhamaatay inkastoo meelaha qaar weerar laga soo sheegay. dadka qaar is diiwaan geliyay ayaa u suurtageli weysay inay codeeyaan wuxuuna guddigu u sababeeyay cilado farsamo oo dhacay waxaana warku sheegayaan dhowr saacadood lagu daray waqtiga markii la ammaanka dalka oo dhan ayaa aad loo adkeeyay waxaana amniga sugayay in ka badan 70,000 oo askari.
natiijada kama dambaysta ayaa soo bixi doonta horaanta bisha Noofembar ee sanadkan waxaana guuleysanaya musharaxa hela wax ka badan 51% codad kala dhiibtay. Ashraf Ghani madaxweynaha xilligan iyo Cabdalla ayaa ugu tunka weyn musharaxiinta u tartamaya hoggaanka sare ee dalkaasi. Waa markii afaraad oo doorasho ay ka dhacda Afghanistan tan iyo markii xukunka laga tuuray ururka Taliban sanadkii 2001. ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa loo diiday inuu isbitaal ku booqdo safiirka Iiraan ee qaramada midoobay oo xanuunsanaya. dowladda Mareykanka ayaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan u diiday inuu isbitaalka ku booqdo wakiilka Iiraan ee qaramada midoobay oo xanuunsanaya. mas'uuliyiin ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa diiday inuu tago wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jafaad Shariif isbitaal uu ku jiro Danjiri Majid oo lagu sameeyay qalliin. wakaaladda wararka IRNA ayaa sheegtay in wasiirka iyo xubnaha la socdaba la sheegay inay ka bixi karin hoteelka ay ka degan yihiin magaalada New York. dowladda Iiraan tallaabadaasi way cambaareysay. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.